maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay dil toogasho ku fulisay nin la sheegay inuu ka dambeeyay qarax ka dhacay suuqa beerta degmada Waabari ee gobolka Banaadir. Wafaahinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray waryaheena Cabdicasiis Cabdullaahi Riyale. maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ku fulisay Cabdiqaadir Cabdi Xasan oo 40 sano jir ah kaasi oo loo haystay in 26 bishii 11 sanadii hore qarax ka dhacay suuqa beerta degmada Waabari uu ku dilay dad gaaraya ku dhawaad 30 ruux 40 dhowr kale dhaawac uu ka soo gaaray. xeerlaaliye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Dhame Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaana ka warbixiyay qaabka dilku u dhacay maanta. taariikhdu markay ahayd labadii bishii 2017 waxay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay shabaab Cabdulqaadir Cabdi Xasan 40 jir ah ina Xaliima Cali Shabeellada Hoose kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab kuna qornaa ismiidaamin lana soo qabtay 26 bishii 11 2016 isagoo wada gaari caasi ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ujeedkiisuna ahaa inuu isku qarxiyo dadka shacabka ah ee ku ganacsado suuqa beerta ee degmada Waabari kadibna ay qabteen ciidanka amniga sidaasna uu ku qarxay gaarigii uu waday qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 30 qofood oo shacab ah 43 kalena ay ku dhaawacmeen. taariikhdu markay ahayd 12 bishii 3 2017 dambiile ismiidaamiye shabaab Cabdulqaadir Cabdi Xasan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii shacabkii ku geeriyooday suuqa beerta ee degmada Waabari 26 bishii 11 2016 maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 5 2017 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka toogashada ahaa. shakhsiga dilka maanta lagu fuliyay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu marayay marxalado kala duwan oo ah maxkamadda waxaana gabagabadii maanta lagu fuliyay xukunkaasi dilka oo ka dhashay qaraxii isagu uu geystay. Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed, Cabdicasiis Somali Cable, Muqdisho.